bisha oo Shacbaan waxay isu diyaarihaysaa inay guurto waa dhammaan rabtaa inay dadka faaruqdo cabaari joogto way tagi rabtaa waxaa imaaday marka bishaarooyin ama hambaniyo oo bil kale Ramadaan la yiraaho oo ummadda ugu tahniyeynaysa soo gelida bisha Ramadaan waxayna u bishaareynaysaa karaamo inay gaarto mana ka dhibna ilaa dhowr maalmood ka bacdi maahan inay bilato shahru Ramadaan bisha Ramadaan dhalashadiisii dhowr maalmood bisa ka haray biidni illaahi waxaa dhalan doona bil oo aad iyo aad u weyn waxaa dhalan doona jamacada kale wixii ka dambeeyay mawsim waqti oo waqtiyada khayraadka ah ayaa dhalan doona waxaan isweydiin marka mudan ramadaanka intuusan dhalinin sida hadda oo kale iyo wixii ka horeeyey qof walba muslim ah nafsadiisa wuxuu ku tirinayay ama uu haminayay khayraad fara badan inuu sameeyo inuu salaad fara badan dugto sunooyin fara badan dugto inuu haweenadii intaasoo salaatul leyl uu dugto quraanka intaasoo jeer inuu khatimo uu bilaabo dhameeyo dhowr jeer sadaqan intaas inuu la baxo ayuu qof walba niyeysan yahay waqtiyada khayrka markii uu soo socdo qof walba saasuu niyeysan yahay haddana haddii ramadaankii ama waqtigii la galo maalmaha ugu horeysaba wax alla wixii lagu tamaninayay ama nafsadda ay ku sheekaynaysay way iska tagayaan sababta maxaa ugu wacan ma taqaanaa waxaa ugu wacan oo waxa uu tamaninayay oo khayr ay suurtagelaynin sababtu waxa weeye intuusan waqtigaa la gaarin nafsadiisii hawsha uu ku tamaninayo ma barin ma ku laaziminin acmaal marka hawl oo kolka hore nafsadda in lagu soo tarbiyano u baahan inuu liskii niyeysto waqtigii ay u baahneed in ma u suurtagelayso qofka inuu macnaha uu hawshaa qabto sida roobka oo kale ka soo qaad roobka intuusan soo di'in ayaa la diyaarsadaa xareedda weelalkii lagu shuban lahaa roobkii oo mashriq iyo maqrib hadduu ka yimaado oo dhulka ku daataad arkaysid waa shalaayaysaa ramadaankana saas oo kale hadduu yimaado dadna waa ku faa'iidaysanayaan dadna waa ku khasaarayaan marka acmaasha intaysan la imaanin ayaa loo diyaargarowaa taasaa ugu wacan in wixii khayr aad ku tamanihaysay inay kuu suurtageli weyso waxaa ugu wacan haddaadanba fara wax ku hayninba waxba ma samaynaysid hadda niilay haysaa bis hadhuuna niyadaas ma socoyayso lianna baraatika ahaan ma u samaynin adi waa kuwa adkaane waa laga yaabaa waajibkeena iska tiinaysa laakiin dhibaa ku qabtaa leen qof muslimaad tahay soonka ma furaysid horta wixii kaloo sunooyin ama qur'aan akhris ama sadaqa ama tahajjud ama taraawiix iska dhaaf marka nafsadda mar walba in loo leeliyo wixii loo abuuray ilaahay wuxuu yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun waxaa kaloo haddana in la xasuusta mudan goormuu noogu dambeeyey horta intayna meesha fadhiso qiyaamuleyl goormuu noogu dambeeyey dadka isku mid maaha qofna waxaa ugu dambeeya haweenkii ciiddaa ugu dambeeyey hadduu masaajidku tukanayo ama masaajid kale ku tukanayo goormuu noogu dambeeyey salaatuleyl haweenkiina u soo kaco waa inaan isweydiin qur'aanka inaad dhammaysid maalintii akhrintiisa goormuu kugu dambeeyey qof walba isagaa is og taamteebuliskiisa isagaa og qur'aanka inaad bilaado dhammayso ramadaankii hore haddii uu kugu dambeeyey waxa weeye waa laga fiican yahay soom inaad soonto goormuu kugu dambeeyey oo ma wadaca haddiiba aad soontay waaye kadib aadan soon sunnaa jiro aad og tihiin isniintii iyo khamiistii ayaamulbiidkii shacbaanka hadda nabiga aad uu soomi jiray soon haddii waajibkii hore uu kugu dambeeyey waa inaan isweydiino qof walba waa inuu xisaabiyo wey jadwalkiisa su'aal marka inaan isweydiino mudan jawaabtana adilay kuu taalaa marka haddii hadda gacanta aad ku haysid oo aad dadaalaysidna aday ku fiican tahay
haddii waxaas uu kugu dambeeyey ramadaankii horena waa xisaab adiga kaa dhiman waaya wax fiicanna ma aha saxaabada fiiri marka فكان العام كله عندهم شهر رمضان ساسالي بشهر رمضان وها بسنة كودنبو رمضان من كل قال له دلان كم سمينين سنة كودنبو هاي سيد رمضان أو كان على شهر رمضان سيد اللي بلو دلالة أي دلالة جرين هذه رمضان لا سوق اسكو الله فرحت لو دريون هي من كودي همي كودا كربو كعاين إذا رمضان هيني بددالين صلاة الليل كددالين صوم سنة كددالين صدقين لبحين قرآن كي أخرناين وحي أعمال صالحات أو رمضان كا أو كهبان أو أنت اللي قايرين أي بس كل توانك بلاد لين يسمين جرين رمضان هدو إيمانا وكسي دراين إلهي إلي ودا بعدان أي سي زيادين أي مركا تسالة هان محا مركا نلا قدبان آنو هبان بشهر رمضان إن كذا هرتقنا أن كسر دبين وقت جاء وهي كده بين الباب كسر قراءة إن لقى فرور وابس هذه فرن حتى حقوق سوق جلالة وقت وسوق جلالة وحوا إذا كانوا باهن ما وقت السعادة واي خبك كفر خبك ديار جروي خبك كلام ما مو ديار جرو من حقوق سوق جلالة حقوقكم بها أو وبدبا هداية توفيق يا إلهي ويدسين أنتين ودم waxaa kaloo haddana tusaale isweydiihaynaa haddii maalan tusaale ahaan marti oo aad jeceshahay qalbigaaga ku weyn qof adiga qalbigaaga ku weyn haddiiba kuu soo martiyo oo agtaada sharaf ku leh oo kuula soo xiriiro ku yidhaaho waa kuu imaanaa waa kusoo ziyaaranaa haddana uu kuu sheego maalin hebel inuu ku imaan doono intaas maalmood inuu kula joogi doono qofkii agtaada sharafku ku lahaa haddii sidaa uu ku yidhaaho maxaa samayn lahayd qof agtaada qiimo ku leh wey wuxuu kuu sheegay waa kuu soo martin doonaa intaas maalmoodan kula joogi doona waa farxi dabcan dareenkaagana soo noqon lahaa shaki ma ku jiro waa farxe leanna qof aad jeceshahay waa soo maa isla markaas haddana farxaddaas waxay keeneen ziyaaradaa qofkaa uu ku soo ziyaaranayo kuu soo socdo gurigaaga u soo socdo inaad u diyaargarowdid oo raashinka nooc asagu uu jecel yahay iyo gurigaaga hagaajintiisii iyo gurigaaga inaad nadiifiso iyo barnaamij inaad u diyaarisid maalmaha uu kula joogo oo aad martigelihaysid ayaa u diyaarin lahayd qof walba saasuu samayn lahaa waa marti marka ka waran marka haddii martida oo hadda noo soo dhow uu yahay wax adiga kaliga aad jeceshahay keliga aan ahayn ilaahay bisha abuuray jecel yahay rasuulkiisna wuu jecel yahay muslimiinta oo dhanna ay jecel yihiin martida noocaasa see ku habboon inaan u soo dhowayno haddana martidaas qof adiga wax kaa raba maaha wuxuu garbihiisa ku wataa khayraad iyo baraka fara badan oo ku wataa martidaas marka waxa weeye shahru ramadaan wey sidii shacbaan uu tagaa asna maalmo joogaa bis 30 maalmood ma ka badnaa ayaamu macduudaat maalmo wey ama waa 29 ama waa 30 waa dhamaahay sidii bilihii kale ay u tagtay u tagay waa bil aad iyo aad waa ilaahay subxaanahu wa tacaala u karaameey wey waa bishii qur-aanka uu soo degay bishii soomkeeda waajibka laga dhigay oo arkaanul islaam ay ka mid tahay waa bishii tahajjudka oo aad iyo aad in loo dugto loo baahan yahay weeye waa shahrigii qiyaamka qiyaamuleyl in loo soo istaagayo ku habboon tahay waa bil waxa weeye dulqaad in la muujiyo loo baahan yahay waxaa yeele haddaadan dulqaadina cibaadada ma u gegsan kartid farkaa tuure waa iska dhaafeen yacni waxay u baahan tahay shay walba sabar la'aan wax ma kuu suurtagalaa inaad gegsataan la rabaa oo soomka iyo qiyaamka habeenkii inaad soo jeedid maalintii inaad soontid oo qur-aanka akhrisid acmaasha saalixada bisha ramadaan in loo gegsanaa la rabaa waa bil waxa weeye naxariis ah waaye waa bil waxa weeye oo maqfira weeye ilaahay dembi dhaafkiisa aad u badan yahay waa bishii naarta la iska xoreyn lahaa habeen walba oo bisha ramadaan ka mid ah ilaahay intaasoo qof uu asaga ogyahay balaayiin ah
ونارت كحرينا dad habeen koobadii soo galayeen dad habeenkii labaadii soo galayeen habeenkii ugu dambeeyay waxaa la xoreynaa intii habeenkii koowaad 29 maalmood intii la xoreeyay illa midaa la xoreynaa bal qofkii xoreyntaas maridaas ka qado waa ayaan daran yahay waa shahar waxa weeye oo hal habeena ku jiro habeenkaasi wuxuu ka khayr badan yahay khayru min 1000 shahr kun bilood uu ka khayr badan yahay بالكلا لو قري مجرت إلا بشهر رمضان معه هبين كاس مركه هبين والبعدين هذا استاجيس قيام الليل سمينيسي وحوي خير أدياد وخربنوي وحكى الأدياد أبوذ ويس وتراويح على الدكان كريم وقيام الليل على الدكان كريم هسيجين صلاة الشهر لصلاة الصبح هنا الجماعة كدكتو نبي وحيي رفقي الجماعة كدكتو صلاة الصبح صلاة العشاء فكأنما قام الليل كله ولا مديها يسمى منك صلاة الليل بتاعنا ماشي ويروي هذيك لنا واجب كيس كتيري سنة نمسو استاك أو منك قيام الليل ترابيح آديات وجدها وحاليا هنا مركة تضعف ولا الرابعة هذا أنا وحوي بشهر رمضان شياطينتي والحرحري دونا وكل ولا كتين لنا نارت البابدي بشي الحري الهايوي جنة البابدي بشي الفور الهايوي خير كي بركات كجرت بالكلا كجرت من جرت البابدي جنة الفورة البابدي نارت على حرا شياطين وحي أو إبليس أو ومدى خسايا دن وانا حرحرا وحابل وسنة حيا معانو يعني جنة وعرنوي خير كاس إكرام داس جالس كاس دد قاركود ولا يابي رمضان دي لجارو دد كيو صوماي ومساجد اللازماي وتراويح آلاي صلاة الليل كي آلاي السنة لغو يسنس كجل حجرا رمضان إني تهدم ومنينيس دد قاركي سي وأيان دارينين وبشي هذا لا بوي ولا لا أعمال صالحة مضاعف وي حسنات كي يحيي اللي سمين لها هذا لا داعدا ولا بركينا وبشي أجرك أو آد وين إلهي وبحلنا هاي فضائش هاي أو بشهر رمضان عين ليلة هاي وآد بوريا هاي وحنا كوبي كلمة وحا حقيقة مركا لو باهانيا خوف والبو أوغادو tilmaanta martidaas waxaa la gudboon inuu ka faa'iidaysto axsan istiqbaal ka faa'iidaysi ama qaabilid ama soo dhaweyn midda ugu ficnad inuu ku soo dhaweeyo isla markaas inuu diyaar garoobo camaliya hawl iska hadal ma hawl aan rabaa in amaal saalix oo nabiga laga soo gaaray in loo diyaar garoobo oo markaasi faa'iidadaada ay noqoto أعظم فائدة تنقوين أما أقو بدن وفقنا عصدها دي مال عجر أجلسي مال بدن أجلسي اسكو فائدة مكان يسو أعماش صالح هذا بشهر رمضان اللي ما هي سيدنا كلما جهد بدن أجلسه فائدة بدن أيا إلهي بنجيسي أما آخرة أيا كاهرية waxaa la rabaa markii bisha ramadaan markay baxayso oo caaba ay ugu dambayso inaad ka shaqaysid nafsadaada inay nadiif noqoto ruuxdaada inay daahir noqoto sidii ilaahay subxaanahu watacaala yidhi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha qofkii nafsadiisii dembii jariimo ku aasay waa khasaaray kaas قفك نفسدي أعمال صالح إيمان كبحينا والطاهر نقضي قفك واليباني وبالله إليه مركا نفسدينا قفل بنفسدي سينو نظيف كديقو ومرتدى هذا الشهر وأسبوع كان بلاوه يسو وبشهر رمضان قفل بو استقبال في عنه وفيديو وددانا يا لباهيه